Wasiirkii hore ee maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland wuxuuna uga hadlay xaaladaha doorasho ee golo deegaanada maamul goboleedkaasi Puntland. Waxaan aaminsanahay nidaamka siyaasadda ee dastuurka dowladda Puntland waa mid qoran oo ah doorashooyin toos ah, xor ah iyo xalaal ah, waafaqsan dastuurka iyo xeerarkiisa, ayna heshiis ku yihiin dhammaan dhinacyada ay khusayso, laguna kalsoonaan karo oo dadweynuhu soo doortaan ciddii ku hogaamin lahayd heerarka kala duwan ee dowladda Puntland. Waxaa cad oo aan shaki ku jirin in aan doorashadaasi muuqan xukuumadduna wadin ee la wado doorasho intaas oo dhan lid ku ah, taasoo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarkiisa. Waxaa lala wareegay awooddii maamul iyo dhexdhexaadnimo ee guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashada, lagana dhigay dad ka hoos shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha, xafiiska madaxweynaha iyo ururkiisa ka ah. Sidoo kale wuxuu sheegay in doorashada socotaa tahay mid hubeysan, waa sidoo hadalka u dhigay. Waxaan bocodsan lahayn in adduun weynaha iyo dadka yaqaan ama bartay cilmiga dimuqraadiyaddu sifada saddexdan sifo doorashada leh meel ay ka dhacday adduunka iyo maxsuulkii soo baxay oo dadka lagu maamulay wuxuu noqday in loo sheego. waa doorasho hubeysan oo suuyo iyo shilkayaal afardhumooda lagu wado oo magaalada la soo gelinayo, magaaladii markaa looga dalinayo la soo gelinayo hub aad u tiro badan. Magaalada Baran oo kale waxaa waday 24 tignika ah. Magaalada Dhahar waad garanaysaan hubka ciidankii waday waxay ahaayeen 18 gaari. Garowe waxaa soo galay 75 tignika ah iyo 780 ciidan ah. Xasan Shire Abgaal ayaa sidoo kale ka hadlay colaadda ka taagan gobolka Sool, isagoo oo sheegay in Puntland ka gaabisay doorkii ay ku lahayd. Gobolka Sool ee Laascaanood, gobolka Sool waxa uu ka mid yahay gobolladii shanta ah ee Puntland asaaskeedu ka bilowday, waxaana gacanta ka